xaflad ay ka soo qayb galeen kumanaan qof oo Soomaaliyeed ayaa waxay ka dhacday hoolka shirarka caalamiga ah ee Convention Centerka ee magaalada Minneapolis. xafladan ayaa waxaa lagu taageerayay ra'iisul wasaaraha cusub ee dhawaan xilka loo magacaabay ee uu magacaabay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay dad magaca ku dhex leh bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota, waxaana ka mid ah Keith Ellison oo isagu ah nin reer Minnesota ah hase ahaatee ka mid ah Congress-ka Mareykanka oo laga doorto magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. sidaasoo kalena waxaa ka soo qayb galay haweeneyda dhawaan loo doortay xafiiska maayirka magaalada Minneapolis, Betsy. waxaa ka hadlay sidaasoo kale xafladan culimada, aqoon-yahanada, wakiilada madax dhaqameedka iyo xubno ka tirsan ururada u adeega bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ka mid ah culimada gobolka Minnesota, imaamna ka ah masaajidka Daarul Hijra, ayaa waxa uu meesha ka soo jeediyay erayo uu kula dardaarmayay ra'iisul wasaaraha iyo dowladda Soomaaliyeed. inta kale aan doonay inaan idhaahdo marka waa intan fiiri walaalayaalow, waxaan u soconaa dawladnimo. dawladdu qiimaha ay leedahay waa tan idinka ama inaga meeshan idin fadhiisisay oo kale. dawladdu markay jirto dadkeedu nabad bay u fadhiyaan. dawladdu markay jirto dadkeedu shaqay haystaan. dawladdu markay jirto dadkeedu waxbarashay haystaan. dawladdu markay jirto wadada jaban baa la dhisaa. dawladdu markay jirto guryaha burbursan baa la dayactiraa. dawladdu markay jirto qofka musiiba ku dhacday baa loo gurmadaa. inaynu si sax intaan u yara fikirno aan dhahno dawladdu waxay u baahan tahay dad saddex nooc ka kooban. gruubkan xilka loo doorto oo madaxweynaha iyo prime ministerka iyo executive branchiga dadka la shaqeynaya oo daacad ah oo dadnimo raadinaya oo maslaxa gaar doonaynin oo ummadooda inay wax ka dhigaan doonaya. waxay u baahan tahay parliamentarian dad ah oo la soo doorto oo aan lagu soo xulin 4.5 ee lagu soo xulo aqoon, quality iyo dadnimo iyo qofkanu damiir ma leeyahay, qofkanu Soomaali ma yahay, qofkanu bulshada wax ma taraya, qofkanu bulshada wax ma ku soo kordhinaya, lagu soo xulay u baahan tahay. marka meesha la keenana ummadda daacad u noqda, ummadda danteeda ka taliya. waxay u baahan tahay judiciary system iyo qada ka madax bannaan labada qaybood oo uu sharcigu ka sareeyo madaxweynaha, uu sharcigu ka sareeyo prime ministerka, uu sharcigu ka sareeyo qof kasta oo la oranayo qofkanu sharcigiibu ku xadgudbay. sidaa darteed waa in waxan laga qaado. dawladdu intaasay u baahan tahay. dhinaca haweenkana waxa ay iyaguna ka dhiibteen codkooda in ra'iisul wasaare Cabdiweli uu ku soo daro xukuumaddiisa haween. waxa ayna ku amaaneen ra'iisul wasaarihii hore Saacid oo siiyay 2 xubnood oo ka mid ah 10kii wasiir ee dawladdiisa. waxa ayna ka filayaan ayay tiri mid intaa ka badan dawladdan cusub ee ra'iisul wasaare Cabdiweli. baldegeyno haddii ilaahay idmo hambalyo prime ministerka Cabdiweli Sheekh Axmed, aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay. waana soo dhaweyneynaa prime ministerkii hore Cabdi Faarax Sheekh Doona. waxaan leenahay aad iyo aad baa u mahadsan tahay inta maamulka soo haysay iyo sida sharafta badan oo wanaagsan oo dhammaanteen meel kastaan joogno ummadda Soomaaliyeed ee ugu faraxday aad u dhiibtay xilka walaalka Cabdiweli. waxaan dawladda aad iyo aad ugu mahadinayaa tii hore ee Saacid qaybtii ballaarneed uu naga siiyay haddaan nahay haweenka Soomaaliyeed. wuxuu naga siiyay 2 jago oo ugu muhiimsan. 10 wasiir buu 2 naga siiyay, waliba 2 jago oo aad u muhiimsan haddaan nahay gabdhaha Soomaaliyeed. waadna ogtiin idinka marqaati ka ah sidii ayaga soo baxeen gabdhahaas hawshoodii. hawl cad oo waxtar leh oo taagan bay gabdhaha Soomaaliyeed Fawziya Xaaji Aadan iyo Maryan Qaasin ay ka soo baxeen. waxaanan codsanaynaa inay ku soo noqdaan haddii Ilaahay yiraahdo dawladda
hadday suurowdo egi lahaa in maaragtay aanu isqabsanno annagaa isku qabiila annagaa isku dada xaqeenna aan u doodno gabdhihii naga horreeyay xaqa gabdhaha Soomaaliyeed u doodi jiray inaanu ku dayanno dawladda waxaan ka codsanaynaa Cabdiweli waxaan ka codsanaynaa Cabdiweli qaybta iyada ragga ha noogu dhiibin ha noogu darin noona badi 30% nobody 30% waxba maaha rag haddii si fiican loo xisaabtamo annaga 50% waan ka badannahay haweenka haddaan nahay raga waa idinka waa is dhamayseen annaga wali waa dahannahay marka soddonkii haddaan konton nala siin karin bal soddonkii hana la siiyo Axmed Laari TV-ga Somali Sat magaalada Minneapolis.